midowga shirkadaha duulimaadka Blue Sky Airline iyo Ocean Airline oo ku midoobay Blue Ocean ayaa munaasabad loogu qabtay hotel Gacayta ee magaalada Boosaaso waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka madaxda shirkadda ganacsato ururka haweenka gobolka Bari iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxa shirkadda Blue Ocean Xasan Yuusuf Jaamac. awalan magacu wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo midna uu yahay blue midna uu yahay ocean waxa jirtay laba shirkadood oo mataana ah ayaa jirtay oo midna la oranayay Ocean Airlines midna la oran jiray Blue Sky Airline waxaanu go'aansanay in aanu midayno xooggayaga iyo maskaxdayada iyo muruqayaga annagoo Allah subhanahu wa ta'ala la kaashanayna inta kadibna shacabka la kaashanayna. Faaraxa Jimire oo ka socda shirkadda isgaarsiinta Golis iyo ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Bari ayaa soo dhaweeyay shirkaddan diyaaradaha Blue Ocean oo runtii arin aad iyo aad baahi loogu qabay bulshaduna wax weyn u qabtay waana dhiirigelinaynaa waana haddii ilaahay maayo guul noo soo korortay weeye waxaan codsanaynaa maadaama aan first nahay annagu oo locationka ay ku taala Puntland ay ku taala ay tahay meeshii ugu dhaweyd ganacsiga Imaaraadka inaan noqono labada flight-ba first inaan noqono ku dhiirigelinaynaa inaan idin la shaqeyno maamul ahaan iyo shacab ahaan iyo kulligaya. ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cabdirasaaq Xuseen oo soo xiray munaasabadda ayaa xusay shirkadda ugu horeysay noo timaada maxaynta airport-ka la furay hanaga gudbiso badda hanaga gudbiso halka ay bariga noo gudbiso bariga kaleeto ganacsatada booskeedii ayaa dhiman waxaan leeyahay ganacsatada hal la taageero shirkadaha inoo imanay hal la taageero. Ahmad Sham, Hon Cable TV, Boosaaso.